maamulka degmada Garadaga uu horkacayay maayirka degmada Garadaga Faarax Aadan Ciise oo ay weheliyeen qaar ka mid ah shacabka degmada Garadaga ayaa si iska wax u qabsaa waxay ku buuxiyeen deegaanka biyo dhanaan oo galbeedka gobolka Sanaag oo ahaa kuwii ay sida weyn u waxyeeleeyeen daadadkii soo celiyeen roobabkii xoogga ahaa ee ka da'ay sidoo kalena dhib weyn ku haya gaadiidka kala duwan wadadaas maayirka degmada Garadaga Faarax Aadan Ciise oo uu weheliyay xoghayaha fulinta dawladda hoose ee degmada mas'uuliyiinta wasaaradaha degmadaas iyo waliba qaar ka mid ah shacabka kaas ay sheegeen in ay karaankooda wadada buuxinayaan burburtay dhanka kalena maayirka degmada Garadaga ayaa waxa uu baaq u diray hay'adda wasaaradda horumarinta wadooyinka Soomaaliland halkan dhamaanba waxaan ka salaamayaa maamulka dhalinyarada sharafta ee isugu timi odayaasha dhamaanba waan salaamayaa salaanta ayaan ku salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan leenahay u sheegaynaa dadka iyo dawladda iyo maamuladaba runtii wadooyinkii wax badan ayaa roobka Ilaahay raxmadda Ilaahay keenay ay yeelaysay waxaan leenahay waxaan qaban karno anagu waan qabanaynaa haddaanu nahay degmada iyo haddaanu dadweynaha nahay waan aragtaan waxaana jeedkii la siiyay waa wadadii oo go'day meel waliba waa go'day saddex hadeer meelood baan soo samaynay way ka mid tahay maxay ahayd cadaad tii ka sugaysana maxay ahayd biyo dhanaan iyo tan oo nasiya saddexda meeloodba waa go'een daawanayo waa dalkaagii daawanayo waa dalkaagii waxaanu leenahay ka hadhmayno galabtana waxaanu aadaynaa cadalay iyo saddex meelood oo halkaas halis badan ayaa ku jirta baabuurtii sallallahu alayhi wasallam وطارنكن waxa weeye marka hore waxa weeye waa fi sabilillah wadada iyo masjidka waa dhulka waxa weeye danta guud waxa weeye arinkeenaas waxa weeye fi sabilillah diiwaanka Ilaahay baan u dhiganay ujuurteeda marka laba Soomaaliyeed waxay ku maamulaa hadii danta guud lunto ta gaar ahaanadna way luntaa marka insha Allah waxa laalo wixii daaqadeena waynu shaqaynaynaa waxa laalo waxaynu iskala hogaaminayo si istaa wax u qabsaa aan u wadnay maanta annagu waan tala shaqeynaa maadaama aan nahay dhalinyarada degmada iyo wasaaradihii degmada waan la shaqeynaa berina waxaan aadnaa cadalay haddana tan aan fulinayna hambalyeelaya una mahadnaqayaa dhamaanba bulshada reer Garadaga ee maanta ka soo qayb galay hawsha shaqada qaranka ee lagu baraarugay kadib markii ay roobkii daay daadadkii ka dhashay waxyeeleeyeen meelo badan oo wadada ka mid ah sida aad aragteen maalin dhawaato waxay aad iyo aad u xuyeen daad oo kale iyo meelihii kale magaalooyinka oo ilaa shil ka shaqeynay maanta halkan aanu bilownay sida la sheegay waxa laga shaqeeyay si iska wax u qabsaa suurooyinka shicibka ayaanu isticmaalaynaa waxaan u baahanahay hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda hawlaha guud wasaaradda gaadiidka iyo guryeynta inay degmooyinka keenaan iskarogooyin iyo sheewallo cagafyaa si marka khatarahan oo kale dhacaan wax looga qabto imika waxa weeye cagafyada xataa soo gudbi waayeen hadda imika halkan Garadaga joog lahayn cagaf mar hore ayaa wadooyinka go'an wax ka qaban lahayn aad iyo aad baan u codsanaynaa anaguna hadda maadaama iibsan karno ka dhaqaale ahaan sheewallada iyo iskarogooyinkaba sida la idin sheegay sidaan shaqada u bilowday mid kama gaarayna aanu ilaahay fadhigaab ilaahay intaan socon karno insha Allah taala waan soconaynaa meeshii go'da waxaanu talagalnaa inaanu buuxino dhagaxna ku buuxino soo raacno ka daalibayno waxaanu isku booranaynaa shaqada maanta waxaanu hawlgal aanu ku galay wadadii ay roobku waxyeeleeyeen kaayaga maamul ahaan iyo kaayaga reer Garadaga ahaanba wixii aanu awood aan u lahayn ayaanu maanta ugu soo banaan baxnay waxaanu soo qabanay saddex taabsimood oo kala xunso biyo dhanaan iyo nasiibo hadda aanu taaganahay saddexda mawduuc Ilaahay waan ugu soo guuleeyay waxaana noo harsan cadalay iyo dableere iyagoo iyagana aanu inta sidaas si leeg aanu uga bixi doono anagu marnaba kaayaga maamul ahaan iyo kaayaga reer Garadaga ahaanba marnaba ka gacan dhigmayno inta awoodayada aanu wadada raxmadu wax yeeshay waraan maxamed raan telefishinka caalamiga Ariel TV degmada Garadaga